xalqadii hore waxaynu kaga soo hadalnay duulaankii ba'naa ee tataarku ay ku qaadeen muslimiinta sanadkii 617 ee hijriga. waxaynuna aragnay xasuuqyadii argagaxa lahaa ee ka dhacay Bukhaara, Samarqand, Merva iyo meelo kale sidii sahlanayd ee ay tataarku u baacsanayeen boqorkii Khawaarzim ee Maxamed Khawaarzimi, iyo sidii uu cadowgu u helay jid dheer oo furan oo uu ku gaari karo bartamaha dhulka muslimiinta. mu'asasada Aflax waxay ugu bishaareynaysaa dadka Soomaaliyeed ee Quraanka jecel inay markii ugu horeysay muddo 28 sano ah kadib ay bixinayso waxbarasho online ah oo adigoo gurigaaga jooga aad ku baran kartid alifbeetada, Quraanka, ijaazada ilaa barashada qiraa'aadka. haddaba diiwaangelintu way furan tahay. caruur iyo dad waaweynna way iska diiwaangelin karaan, waxayna qaadanaysaa fasallo kooban. xog dheeraad ah oo ku saabsan mu'asasadan ka daalaco website-kooda aflaxonline.com. sidoo kalena iska diiwaangeli WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. haddii aad u baahan tahay waalidkaaga oo geeriyooday ama sariiryaal ah in lagu soo gudo acmaasha cumrada, waxaa magaalada Maka diyaar kuugu ah culimo kuu qabanaysa hawshan, idiinna soo duubaya muuqaallo muujinaya inta ay hawshu socoto. wixii faahfaahin ah kala xiriir WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda ee ah eber 9664746424. markii uu sida aan dhibka badan lahayn u jabiyey dowladdii weynayd ee Khawaarzimiyiinta, Genghis Khan wuxuu gaaray riyo qaali ah oo uusan filayn inuu si fudud ku gaari doono. riyadiisu waxay ahayd qabsashada Afghanistan, oo inuu gacanta ku dhigo Afghanistan waxay u lahayd faa'iidooyin aad u waaweyn, kuwaasoo kala ahaa: 1. dabiicadda buuraleyda ah ee Afghanistan ayaa ka dhigaysa inuu ku duulo dalkan mid aad u adag ama xitaa aanba suurtagal ahayn. sidaas daraaddeed, Afghanistan waxay ahayd caqabad dabiici ah oo ka hortagta duulaan kasta. caqabadani waxay yaraynaysay culayska saaran dalalka deriska la ah. haddii Afghanistan ay gacantooda soo gasho, qabsashada dalalka deriska la ah waxay u noqonaysaa mid aad suuragal u ah, si gaar ah Pakistan iyo Iiraan, kadibna Ciraaq. arrinta labaad waxay ahayd goobta istiraatiijiga ah ee aadka u muhiimsan ee ay dhacday Afghanistan. waxay si sax ah ugu taallaa bartamaha Aasiya. qofkii haysta Afghanistan wuxuu la mid yahay qof ku eegaya gobolka oo dhan aragti 360 digrii ah. wuxuu dhowr tallaabo u jiraa dalal aad muhiim u ah. wuxuu kormeeri karaa Pakistan iyo Iiraan iyo quwadaha gobolka ee khatarta leh sida Ruushka iyo Hindiya. wuxuuna si dhow ula socon karaa Shiinaha. qabsashada Afghanistan kadib, xakamaynta Aasiya inteeda badan waxay noqon kartaa mid suuragal ah. arrinta saddexaad waa in buuraleyda Afghanistan ay ku abuurtay dadkeeda adkaysi iyo xoog aan si fudud meel kale looga heli karin. haddii dadkan reer Afghanistan uu jabiyo deegaanada kale inuu ka adkaadana, waxay noqonaysaa mid fudud. 4. dadka Afghanistan waxay leeyihiin islaamnimo aad u xooggan, dagaalkana kama cabsadaan. ma fududa inay aqbalaan gumaysi. dhammaan ciidamadii muslimiintu hore ayay ugu guuldaraysteen dagaalkii ay la galeen Tataarka, balse markii ugu horeysay Tataarka waxaa 2 jeer lagaga adkaaday Afghanistan. haddii uu dadkan dhinaca dhulka u dhigo, waxay u noqon lahayd guul aad u weyn. 5. saamaynta nafsiyadeed ee taban ee ku dhici lahayd ummadda muslimiinta waxay ahaan lahayd mid aad u weyn. sidoo kale saamaynta nafsiyeed ee togan ee ku dhici lahayd Tataarka iyaduna waxay ahaan lahayd mid aad u weyn. shaki kuma jiro in qabsashada Afghanistan ku riixi lahayd muslimiinta niyad jab ka hor istaaga inay dib u kacaan, waxayna ku dhiirigelin lahayd ciidanka Tataarka maadaama ay gaareen guul adag inay si fudud u raadsadaan guulo kale oo ka sahlan. sidaasi daraaddeed, Afghanistan waxay ahayd meel aad u khatar badan, saamayn aad u weyn oo si qoto dheer u taabanaysa muslimiinta oo dhan. maaha oo keliya dadka Afghanistan. si uu riyadiisa u rumeeyo, wuxuu dhowr jiho ka soo weeraray Afghanistan. si gaar ahna wuxuu u doonayay inuu qabsado magaalada Qasna oo xarun u ahayd dowladdii Khawaarzimiyiinta ee uu boqorkeedii cararay, iyo magaalada qadiimiga ah ee Kaabul. inkasta oo uu Genghis Khan awood iyo kibir xaddaaf ah isbiday, haddana marnaba maysan quusan. muslimiintii dhulkan degganayd waxayna sameeyeen arrin uusan horay u arag Tataarku, taasoo ah in muslimiintu difaaca ay isku diyaariyaan iyo inay isku soo hiiriyaan. markii uu baxsaday ninkii xukumayay dowladdii Khawaarzimiyiinta, qaybo badan oo ciidankiisa ka mid ah ayaa dib isku soo habeeyey, waxayna boqor u doorteen wiilkiisii Jalaaludiin ibnu Maxamed ibnu Khawaarzim Shaah. Jalaaludiin wuxuu isku dayey inuu si ka duwan aabihiis iska difaaco Tataarkii ku sii fidayey dhulkooda. dagaallo dhowr ah ayuuna la galay, kuwaas oo uu kaga difaacay in ay galaan magaalada Qasna.
wuxuu mideeyey ciidamadii dowladdii khawaarzimiyiinta taasoo u suurtagelisay in laba dagaal uu tataarka ku jabiyo. guusha ugu weynna waxay ahayd in tataarka uu si adag ugu jabiyey duulaan ay ku doonayeen inay ku qabsadaan kaabul. guulahan ayaa sababay in muslimiinta niyaddoodii ay soo kabato, dibna u riixaan tataarka, taasi oo sababtay in muslimiintu xoreeyaan 10,000 oo maxaabiis muslimiin ah, isla markaana ay dilaan tiro badan oo tataar ah. intaa kadib muslimiintu waxay gaareen wax ay dad badani u arkeen in ay tahay nimco, balse marar badan isla waxaas ayaa isku beddela habaar. imise muslimiin ah ayaa adduun jacayl ku halaagsamay. waxaa ku sugan saxiixa albukhaari iyo saxiixa muslim xadiis uu wariyey camar ibnu cawf, alle ha ka raali noqdee, oo uu yidhi rasuulka alle nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, ma ahan faqri waxa aan idinkaga baqayo, balse waxaan idinka baqayaa in adduunka la idiin furo sidii lagu furay kuwii idinka horeeyey, markaasna aad ugu tartantaan sidii ay ugu tartameen, kadibna uu idin halaago sida uu iyagaba u halaagay. markii tataarkii la jabiyey dibna loo riixay ayaa muslimiinta dhexdooda waxaa mar kale yimid khilaaf dhibaato ba'an u geysan doona. khilaafkan ayaa ka dhex bilowday qaybo hoggaankii ciidanka ka mid ah oo isku qabsaday hantidii laga soo furtay tataarka. sayfuddiin iqraaq oo ahaa taliyihii Turkida iyo nin lagu magacaabo Malik Khan oo xukumayey magaalada Warra ayaa isku fahmi waayey habka wax loo qaybsanayo. kadibna arrintii ayaa gaartay gacan ka hadal. ugu dambayn dagaal isku beddelay. waxay isku laayeen qaybsiga qanimadan awgeed, iyadoo ciidamadii tataarku ay weli ka buuxaan inta badan dhulalkii muslimiinta. kadib dagaalladaas dhexdooda ah, sayfuddiin iqraaq wuxuu go'aansaday inuu ka baxo ciidankii Jalaaludiin isaga iyo 30,000 oo dagaalyahan. waa 30,000 oo dagaalyahan oo isaga baxay saaxadda iyadoo lagu jiro xilligan adag. jahwareer aad u weyn oo halis ah ayaa ku dhacay ciidankii muslimiinta. Jalaaludiin wuxuu isku dayey inuu xal u helo dhibaatadan, wuxuuna u diray sayfuddiin wafdi isagoo ka baryaya inuu ku soo laabto safkii muslimiinta. muslimiintu waxay u baahnaayeen askari kasta iyo xoog walba oo ay heli karayeen. ka bixitaankanna wuxuu saameyn weyn ku yeelan lahaa niyadda iyo ruuxda ciidanka intiisa kale, maadaama cutubyadii Turkida ee baxay ay ahaayeen cutubkii ugu xoogga badnaa ee ku jiray ciidankii Jalaaludiin. iskuday kasta oo lagu damcay in la soo celiyo wuu fashilmay. sayfuddiin wuxuu ku adkaystay inuu baxayo, wuuna baxay. dhacdadaas kadib ciidankii muslimiinta waxaa ku dhacay burbur aad u weyn. burbur dhinaca maadiga ah iyo burbur dhinaca niyadda ahba. waxay ku guuldarraysteen inay si xikmad leh uga faa'iidaystaan guushii qiimaha lahayd ee ay ka gaareen Khasna iyo Kaabul. iyagoo ku sugan xaaladdan jahwareerka ah ayuu yimid Jenkiis Khan isagoo hoggaaminaya ciidamadiisii si uu ula kulmo muslimiintan labada jeer uga adkaaday dagaaladii Khasna iyo Kaabul. wakhti yar ka hor waxay ku jireen guul, haddase cabsi iyo argagax ayaa ku fiday ciidankii muslimiinta. niyaddii muslimiintu way burburtay. Jalaaludiin wuxuu arkay in ciidankiisu aad u tabardarnaaday. halkii uu xoojin raadsan lahaa ama xeelad kale uu qaadi lahaa, wuxuuba bilaabay inuu u cararo dhanka koonfureed si uu uga baxsado ciidankii Jenkiis Khan, ama ugu yaraan uu uga fogaado dagaal uu galo xaaladdan adag dhexdeeda. laakiin Jenkiis Khan ayaa ku adkaystay inuusan ka harin oo uu sii cayrsado. Jalaaludiin wuxuu sameeyey wixii aabbihiis uu hore u sameeyey. wuxuu bilaabay inuu ka guuro magaalo ilaa magaalo, dhul ilaa dhul, ilaa uu gaaray xuduudda Bakistaan. wuxuuna ka gudbay isagoo dhex maraya dhulka Bakistaan oo dhan ilaa uu gaaray webiga Indus, kaasoo kala saara Bakistaan iyo Hindiya. wuxuu go'aansaday inuu ka tallaabo webiga Indus oo uu galo dalka Hindiya si uu halkaas magan ugu raadsado. laakiin nasiib darro waxaa ku soo gaaray ciidankii Jenkiis Khan. halkaas ayuuna dagaal hor leh ku qabsaday. muusan helin maraakiibtii uu aabbihiis helay. gargaar aan soo socon ayuu sugayey, balse wax yar kadib waxaa ka soo dababaxay ciidankii Jenkiis Khan. ma jirin wax kale oo la samayn karo aan ka ahayn dagaal. webiga Indus ayaa ka dambeeyey, tataarkuna hortooda ayay taagnaayeen. dagaal aad u daran ayaa qarxay. wuxuu socday 3 maalmood oo xiriir ah, si ba'an ayaana la isku xasuuqay. dadkii dagaalkan ku dhintay waxaa ka mid ahaa Malik Khan oo ahaa ninkii abuuray khilaafkii dhabarka ka jabiyey guulihii laga gaaray tataarka. maalintii afraad ciidamadii way kala fogaadeen sababo la xiriira tirada badan ee la laayay. dhinac kastana wuxuu bilaabay inuu dib u qiimeeyo xaaladdiisa. intii lagu jiray xabad joojintan kumeelgaarka ah, maraakiibtii uu Jalaaludiin hore u dalbaday ayaa soo gaartay daanta webiga Indus. Jalaaludiin wakhti iskama lumin, fikir iyo la tashiyo toonana ma samayn. wuxuuna qaatay go'aan degdeg ah oo ah inuu biyaha ku boodo oo uu baxsado.
wuxuu ka tallaabay webiga Indus una gudbay dhulka Hindiya isaga oo Tataarka uga tegay dhulkii muslimiinta. Wuxuu uga tegay dad rayid ah oo aan lahayn wax difaaca. Sida aynu horey u soo aragnay, Tataarku ma kala saarayn rayid iyo askari, intaas oo ay u dheer tahay nacaybkii xoogganaa ee ku jiray qalbiga Genghis Khan kadib labadii jab ee Tataarka soo gaaray. Genghis Khan wuxuu ku jeestay dhulalkii muslimiinta isagoo xanaaqu jirkiisa ka buuxo. Wuxuu duulaan ku soo qaaday magaaladii horey loogu jabiyey ee Qazna oo markan difaac la'aan ah. Markii ay yimaadeen deegaankan ayay gowraceen dhammaan raggii iyagoon cidna reebin, waxayna wada addoonsadeen haweenkoodii. Waxay gubeen dhammaan guryihii, waxayna uga tegeen magaaladan sida uu yidhi Ibnul Athiir, iyadoo burbursan oo noqotay sidii in aysan weligeed halkan qof degin. Jalaaludiin keligii ayaa baxsaday, xitaa carruurtiisii uu ka cararay. Waxayna ka mid noqdeen dadkii uu gacantiisa ku gowracay Genghis Khan. Dhammaantoodna dhegta ayuu dhiigga u daray. Carruurtii, haweenkii iyo ehelkiisii oo dhan ayuu dilay. Sidaas ayuuna Jalaaludiin u dhadhamiyey qaraarkii ay malaayiin ka mid ah dadkiisu horey u dhadhamiyeen markii uu naftiisa keliya la cararay, isaga oo sharaf iyo awoodba ka doorbiday inuu tiisa keliya badbaado u helo. Magaaladii Qazna waa la burburiyey. Waxaa xigtay Kaabul oo aan haysan cid difaacda iyo awood ka hortagta Tataarka bahallada ah ee u malabaysanaya hilibkooda inay sidii makiinaddii u shiidaan. Kaabul ugu dambayn way qabsadeen, waxayna sameeyeen wuxuushnimo aan taariikhda horey loogu arag. Waxay xasuuqeen qof kasta oo dhaqaaqayay, carruur, haween, waayeel iyo rag xoog leh, midna maysan dhaafin. Si aysan magaaladu mar kale u soo noolaan, waxay gubeen beerihii iyo xoolihii. Waxay sidoo kale dumiyeen nidaamyadii waraabka, ceelashii biyaha iyo il kasta oo dhaqaale. Intaas kuma sii ekaan ee waxay Tataarkii u sii gudbeen oo arxandarro la mid ah middii Kaabul iyo Qazna ka geysteen magaalooyinka Jalaal Abad, Helman iyo halka ugu daran oo ah magaalada Bamyan. Magaaladan Genghis Khan si gaar ah ayuu ugu cilqabay. Waxaa halkan lagu dilay wiil uu awoowe u ahaa oo hogaaminayay ciidan magaalada inay qabsadaan rabay si uu argoosi aan horey loo arag u tuso dadkii reer Bamyan. Wuxuu laayay wax kasta oo halkan ku noolaa, waxaynu ula jeednaa dadkii oo idil, duunyadii oo dhan, sida xoolihii ay dhaqanayeen iyo duurjoogtii magaalada bannaankeeda joogtay. Magaaladan gudaheeda oo keliyana muusan gubin ee xitaa kaymihii u dhowaa wuu gubay, si halkan ay taariikhda dambe xitaa nolol aysan uga hana qaadin. Markii Afghanistan ay cagta mariyeen, waxaa Tataarka u suurta galay inay gaaraan dhulal aad u ballaaran, laga bilaabo Shiinaha ilaa Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmanistan, Azerbaijan iyo Armeniya ilaa Georgiya. Dhanka kale waxay ku fideen Iiraan ilaa deegaano u dhow Ciraaq. Dhammaan arrimahaasi waxay dhaceen sanadkii 617 ee Hijriga. Hal sano gudaheed ayay ku qabsadeen dhulkan weyn ee bari ee dhacay bariga dunida Islaamka. Mana jirin awood iyo xoog toona oo aan alle ka ahayn oo u muuqatay inay celin karto wuxuushtan. Markii uu bilowday sanadkii 618 Hijriga, Tataarku waxay galeen magaalada Maraka oo ku taala Azerbaijan. Waxay hareereeyeen Maraga, waxayna ku rakibeen hareeraha magaalada manjaniiq ama mashiinadii xilligaas lagu ridi jiray dhagaxyada waaweyn ee magaalooyinka lagu duqayn jiray. Maxaabiistii muslimiinta ee la socotay Tataarka ayaa bilaabay furitaanka Maraga. Maxaabiista muslimiinta ah waxay bilaabeen inay dilaan walaalahoodii muslimiinta ahaa ee ku sugnaa magaaladan, iyagoo ku hungoobay nolol yar amaba istusayey inay naftooda badbaado u helayaan, raacayaanna amarada Tataarka. Haddii maxaabiistaasi ay ku jeesan lahaayeen Tataarka iyagoo u helinaya walaalahoodii Maraga, waxaa jiri lahayd fursad ay ugu yaraan qaar ka mid ah muslimiinta ay ku badbaadin lahaayeen amaba xitaa ay ku guulaysan lahaayeen. Tataarku waxay geleen magaalada Maraga bishii Safar ee sanadkii 618 ee Hijriga, waxayna seefta la beegsadeen dadkeedii. Waxay ka dileen sida uu sheegay Ibnul Athiir wax ka baxsan xad iyo tiro. Waxay boobeen wax kasta oo qiimo leh iyo shay kasta oo ay qaadi kareen. Wax kasta oo aysan qaadi karinna way burburiyeen oo baabi'iyeen, iyagoo dhammaantood isku ururiyey kadibna gubay. Ibnul Athiir wuxuu sheegay in haweenay Tataar ah ay guri geli jirtay oo ay dili jirtay dhammaan cidda ku jirta gurigaas, haddii ay ahaan lahaayeen rag, dumar iyo carruur. Qofnana uusan ku dhiiran jirin inuu ka hortago ama iska caabiyo. Wuxuu sidoo kale xusay inuu si toos ah uga maqlay qaar ka mida dadkii Maraga in nin Tataar ah uu galay xaafad ay ku sugnaayeen 17 nin oo muslimiin ah, isla markaana uu mid u dilay ilaa uu dhammaantood baabi'iyey. Mana jirin hal nin oo gacantiisa u taagay si uu isaga difaaco. Markii ay soo afjareen muslimiintii bartamaha Aasiya, markan Tataarku
waxay u soo jihaysteen waqooyiga ilaa bariga Yurub, waxaynuna ku arki doonnaa xalqadaheenna soo aadan sida uu xalku noqon doono.